waxaan salaamayaa madashan quruxda badan waxaa ugu horeeya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska labada DG Professor Saleman oo aan live ku aragno social media ka salaamayaa waxbarashada ee gobolka agaasimayaasha laamiyiin oo salaamaya waxaan maanta nasiib u yeeshay iyadoo dhowrkii la wareejiyo ay dhaceen baan maanta waxaan nasiib u yeeshay inaan ka soo qayb galo labada DG isku bedelkooda iyadoo ay saakooday waqtigu anoo ka imid ama jooga gobol dheer aad baan waxaan ku hambalyeynaya DG-gii hore macnaha wada shaqayntii iyo muddadii koobnay sida uu noola shaqeeyey agaasimaha cusubna waan ka filaynaa inuu sidii si ka fiican uu noola shaqeeyo aad baan u salaamayaa mutashaafka dhammaan ka soo qayb gashay xafladan mahadsan tahay Fawziya Jibriil gudoomiyaha waxbarashada gobolka Baran runtii inta aan hadalku markaan rabowday inta aan rabaa madasha fadhiya oo ka mid yahay mid ka mid ah dhalinyartii soo hogaansay dalada heerka Soomaaliya mas'uuliyiinta oo madasha fadhiya dhammaantiin markale waan soo dhaweynaa runtii wasaaradda waxbarashada way badan tahay haddii la yiraahdo maanta yaa mudanada lagu dhigay yaa laga tagay qof laga taga maxay ahayd waxa soo jeedtay waxaan kelmad toban sii doonaa mas'uulkii 1999 nasiib u helay inuu xashiishkii iyo ka xaada kharaabada kale oo ah Hussein Daahir Roble agaasimaha waxbarashada dalka ku wanaagsan maanta madasha loo kala inuu ku joogo nasiib ku filan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حفلة أمام مناسبة تدك السوي وإفر بديهن قيلوا بدن ذيك كوريهن وثم قدر العالم حصل عليكم أنت إسماعيل ويري اللوبي هنقوه الرئيسين لها xubin runtii aad waxbarashada muhiim uga ah dalka ka socotay Somaliland oo ah wakiilka ururka midowga Yurub Maxamed Sabuul oo inala soo galay xafladda waxa kaloo ku dari lahaa xildhibaanada reer Somaliland xubno ka socda waxaan ku dari lahaa xubno kale oo iyaguna marti sharaf ah oo ajnabiguna ka mid yahay intaa markaa halkaa ku dhaafo Ismaaciil wuxuu yana carrabaabay xubin inaan ka mid ahaa dadkii halkan 1991kii dib u soo noolayntii waxbarashada runtii xubno badan ayaanu ahayn halkan se imika ku xusi maayo keliya waxaan ku koobnaanayaa inaan ka hadlo munaasabadda maanta aynu u fadhino labada agaasima guud ay xilka kula kala wareegayaan Ahmed Fakor runtii muddo kooban oo ilaa aan ku qiyaasi karo 7 bilood ayuu wasaaradda joogay muddada uu joogay كل ما تقف مسؤولية ملك تبي سؤال سيء معنا وحسوا سمارة قليلة إيو أنت وناكسنا قف مفاعلة إما الشيء وهم كنتي سحر كسنما ومسؤولية بكتير توت المعنى يعني وكوكيلة أما قال يا أفكي agaasimayaasha waaxyaha wasaaraddu ka kooban tahay muddada uu Axmed nala shaqeynayay waxyaalaha noo muujiyay waxay ahaayeen oo ugu muhiimsanaa maamul daadejin maamulku kama soo hor maamul daadejinta ilaa heer gobol degmo intaba waa qodob runtii lagu xasuusto waxaa kaloo aan ku xasuusan karaa كوالهاي تشغالة شخصي
taana waxaan filayaa in agaasimaha cusub ee haddii la yidhaha agaasimaha guud ee cusubi uu halkaa kasii wadi doono. waxaan kusoo gabagabaynaya wasaaraddu laba qaybood ayay ka kooban tahay xagga shaqaalaha dhalinyaro yaro kortay iyo dhalinyaro da'yar. intuba waa inuu adeegta runtii waxbarashada khibrad bay kala dhaxlayaan qolaba qolay usii dhiibaysaa. waan soo dhaweynaynaa runtii dhalinyaro aad baan usoo dhaweynaynaa wasaaradda waxbarashada markaan nahay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waan u hanweyn waa beertayadii bini aadam waxaan maalayaa beeruhu way fara badan yihiin beerta ugu qaalisan waata bini aadamka ka hor dhici maayo barfusar saabaha baataa ka warrami doona. waxaan kusoo gabagabaynaya labada agaasima guud labadoodaba waxaan kusii sagootiyaya nina kusoo dhaweynaya labadoodaba in ilaahay xilkaasi loo igmaday u fududeeyo ujeedooyinka iyo siyaasadda laga rabo inay fuliyaanna ay hirgeliyaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. أدو ما تيجي هالجبا حسين ضايع روبلة كنتي ما لا شواء فريادات عن الهاي الميكروفون.